labadaa booyood waa isku dhaceen booyad dalanbaabiya oo aan tabar badan markaa lahayn ayaa seedkii kale baawur ku jira oo baawurtan kuwa hagoogta leh oo for example ka shaqeeya IDBska iyo meelaha noocaas aan u maleynay inuu yahay iyo rag watay baawurkaas madax ku qaaday wuxuu seedka kale oo dhinaca kale oo banaanka uu la degay oogaduna ka fuulay bacda wiish markuu ka qaaday baanu meydka laba nin ka soo gurnay oo halka ka soo saarnay laakiin laba markii horeba meel laga qaadi karay oo laayeen khasaaradii dhacday sidaas ay ahayd maanta waxa ka dhacay duleedka bari ee magaalada caasimadda Puntland ee Garowe shil aad u fool xun waa ka dhacay maanta shilkaas oo dhimasho iyo dhaawac ba yeeshay tirada ku dhimatay waa 4 qof dhaawacuna waa 6 qof dadkaasna waxay ahaayeen nabadoono iyo goorti bay ahaayeen waxayna u socdeen oo ka shaqeynayeen arrin samafal ah oo bulshada maslaxadeeda bay ku hawlanaayeen nooc kasta ay yihiin waa u taxseenaya saakay abaara hal saac iyo barkii meelahaas waxa dhacay shil aad iyo aad u naxdin badan wuxuu ka dhacay magaalada koonaheeda shilka waxa ku geeriyooday 4 nin ilaa iyo 4 kalena way ku dhaawacmeen shilkaas wuxuu ahaa shil baabuur gaari booyadaba gaari yar oo kale oo nimankaas marxuumada dhintay iyo dhaawacaas ay wateen dusha ka maray haatanna meedkiina isbitaalku yaala dhaawiciina isbitaalka ayaa lagu dabiibayaa arrintaasi sidaas u dhacday